Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhowaada walaalaha Soomaaliyeed. Cabirka shumaca waa kala duwanaan karaa, laakiin waxay bixiyaan iftiin isku mid ah. Ma aha halka aad joogto iyo darajada aad leedahay, laakiin waa tayada iyo dadnimada waxaa kaa dhiga in aad iftiin u noqoto ummad. Tus xushmad xitaa dadka aan u qalmin. Ma aha ka falcelinta dabeecadooda, laakiin waa sawirka bixinta adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan. Ha ka cabsan cadowgaaga u soo bareeray inuu ku soo weeraro, laakiin iska ilaali saaxiibka beenta ah ee habku siinaya. Dulqaadari iyo degdeg waa xididka dhibaatada. Ma qasbi kartid nolosha in ay ku siiso jawaabo ama sida aad rabto wax kasta inay u dhacaan. Waa in aad ogolaataa in ay wax kasta iyagu isfurfuri doonaan. Waa in aad aqbashaa in wax kasta ay qaataan waqti. Dadaal iyo qiimo waxaan ku bixinaa xirashada dharka ugu qurxoon iyo kuwa ugu qaalisan, balse waxaan is-ilowsiinaa bedelista dhaqamadeena iyo dabeecadaheena guracan. Ogoweelka qaaliga ah ma sameeyo cunto dhadhan macaan. Caqabaduhu geeri ama dhimasho ma keenaan, balse dilaaga noloshu waa murugada iyo welwelka. Guul in aad samaysaa uma baahna lugo, balse waxay u baahan tahay dhiiranaan. Ma joojin kartid hadallada dadka, laakiin ha u ogolaan hadallada dadka in ay adiga ku joojiyaan. Jooji ka fikirka in aad duruuftan adag iyo dhibaato weligaa ku jiraysid. Sida xilliyada sanadka isku beddelaan ayay xaaladuhu isku beddelaan. Noloshu waa wareeg, mana jirto wax sidaas ka ahaanaya weligood. Xitaa naftaadu waxay leedahay taariikh ay dhacayso. Wax wanaagsan ayaa noqon kara wax xun haddii aad ka eegto dhinaca mugdiga. Xun ayaa noqon kara wax wanaagsan haddii aad ka eegto dhinaca iftiinka. Sharafta noloshu ma aha in aadan weligaa kufin, balse waa inaad kici karto markastoo aad kufto. Guuldarooyinka ugu badan ee nolosha waxaa gala dad garan waayay dhawaanshiyaha guusha markii ay isdhiibeen. Caqabadaha ugu weyn waa in aad gaadho go'aanka aad hawl ku qabanayso. Wixii ka soo harana waa dhabar adayg uun. Nolol aan tijaabo marin ma aha nolol u qalanta in aad sii noolaato. Geesinimadu ma aha in aad aar goosato, balse waa inta aad dulqaad iyo samir leedahay. Adduunyada waxa ugu weyn ee ku dhaqan waa aadamaha. Aadamaha waxa ugu weyn ee ku jiraana waa caqliga. Saaxiibtinimadu ma aha qofka aad waqti dheer taqaanay. Saaxiibku waa qofka intuu ku yimaado ku yiraahda aniga halkan kuu jooga oo ku garab taagan, ficilna uu kugu caddeeyo. Ka faa'iidayso oo si fiican u isticmaal waqtigaaga. Dib waad u akhrisan kartaa qoraal, fariin ama buug. Waad ku soo ceshan kartaa fiidiyow, muuqaal ama dhageysi. Laakiin ma jirta adduunka nidaam system dib kugu soo celinaya waqtigii ku dhaafay aadan u isticmaalin sida wanaagsan. Wanaag ku bedel xumaan kasta. Dhoolla cadee goortii aad murugaysan tahay. Ku qanacsano halka aad joogto iyo waxa aad haysato. Had iyo jeer cafi cid kasta oo wax kugu samaysa. Dadku way isbedelaan, qalad waa dhacaa, laakiin xusuusnuu noloshu waa soconaysaa. Dadka qaarkii waa sida daruuraha oo kale. Goortii ay kaa tagaan waxay kuu noqotaa maalin qurxoon. Markastoo aad ka shakido ilaa heerka aad gaari karto, xusuuso ilaa inta aad soo socotay. Waxa aad ka soo gudubtay dagaalada qarsoon ee naftaada ku soo haysay. Waadna ka soo guuleysatay dhammaan cabsiga oo aad ka soo baxday. Dadku ma oga oohintaada, dadku ma oga murugadaada, dadku ma oga xanuunkaaga, balse waxay dhammaan ogaan karaan goortii aad halqalad ku samayso. Laakiin Allah Azza wa Jalla ayaa og in kasta oo indhaha ka timaada, wuxuuna kaa cafiyaa qalad kasta oo aad samayso. Ha rajo dhigin weligaa.